السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqod wanaagsan asxaabteena meel walbaan kala joogna ilaahay subxaana watacaala ha inagu wada xifdiyo wax walba aan jecelnahay oo khayr inoo ahne allaha ina wada waafajiyo ma og tahay in nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu subax walba iyo galab walba uu ilaahay ka baryi jiray in ilaahay ka xifdiyo ka ilaaliyo niyad jabka walbahaarka stresska depressionka wuxuuna na baray inaan sidaas oo kale samayno maalin walba maalin ayuu la kulmay oo arkay nin murugaysan oo la ildaran murugo wuxuu ahaa mid ay hareeraysay xusni iyo qalaq wuxuu ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ma ku baraa shay haddii aad tiraahdo allah uu kaa saari doono welwelka murugada ciriiriga weliba kaa dhaafi doono si fudud kaaga saari doono dayntan aad la murugaysan tahay ninkii wuxuu ku yidhi dabcan balaa yaa rasuulullah waa u baahannahay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ii sheeg nebiga maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi akhriso ducadan subax walba iyo habeen walba اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قلب الدين وقهر الرجال إلهي أديك أيان كاما جنجليا مركت يتيران يدا إلهي وحن كاما جنجليا وحن كرو أو أنقبن كرو أو هدنا أنا أدقاقين أو عاجز لإيجا ساريو سو ما أركتد وحاد خبتد إنا تسميسد لكن آدن أدقاقين ودب آد أوين سو النبي محمد صلى الله عليه وسلم wuxuu ka magangeli jiray ilaahayow waxaan kaa magangelayaa gacan adayga iyo fulaynimada waxaan kaloo rabbiyow kaa magangelayaa daynta inay culays igu noqoto ayna igu dhibaan dadka daynta igu leh sow markaad ilaahay ka magan gasho dhib walba oo nolosha kugu dhici kara qaybaheeda kala duwan oo ilaahay kaa xifdiyo miyaadan haysan guul adduun iyo guul aakhiro ducadu waa furaha guusha waa sahayda aan u wadano gaarista yoolasheena iyo guulaheena ilaahay ha inoo wada fududeeyo inaan duco walba ku lifaaqno nolosheena waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh